السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وسباح الدهر سعيد وحنا كمد أهي برفرايدياش دقن سياتل واشنطن والرنجرية جالكير وحنا جالكير رنجرينا يا مدوشن يتمسنا أنا جو أكها assistant teacher كنت youth family services also هذا كهالله maalintii waxyaalaha aan qabanno oo aan soo gaabin doono ilmaha markuu ugu horeyso aan grid gareyno oo noogu soo galaan classroom-keena ama daycare-keena ilmihi waxaan u provide gareynaa health nutrition ama ha ahaato breakfast ama ha ahaato lunch ama dinner ha ahaato iyo waxbarasho ayaga maskaxdooda kobcinayso taas oo kamid ah waxyaalo badan boog akhriskii heesihii wax walba cunugu u baahnaa iyo family-da aan provide gareynayno services ay u baahan yihiin waxyaalaha unionka noo qabtaan haddaan nahay jaalka Bavaris waxa kamid ah ayagoo naga caawiyo in aan dawladda ka helno xaq anaga aan u baahanahay sida ha noqoto lacagihiina loo kordhinayo caafimaadkii iyo muxuu ahaa waxbarashadaas oo heer jaamacadeed ama heer college ah hadda anaga iyo group badan ayaa ugu horeeyay oo la tababaray si aan anaga u tababarno dadka u baahan tababarada oo luqadda Soomaaliga ku hadlayo taas oo ah waxbarashadii oo aan ka caawinayno dadkii inay heer sare ka gaaraan muxuu ahaa waxaan kale ku jirnaa sharci dejintii groupka sharciga dejinayay oo state-ka la dagaalamayay oo Mars noogu dambeysay hadii Ilaahay idin ka dhigo waana mahadsantihiin السلام عليكم مقعي waxaa la yiraahdaa aan Cabdullaahi Abuukar waxaan leeyahay home daycare muddo 8 sano ah waxaan ahay level 3 haddana waxaan diyaarinayaa level 4 marka daycare-ka waxa uu taro aan community-geena ama community-ga nooc walba ahaada ama Soomaali ama dad kala bedelan hooyooyinka aad ayaa u caawinaa qaar ilmaha iyaga noo keeno qaarna waa ka doonaa marka aad ayay marka shaqadooda jiraan mar hadda u geysatay ilmaha qofkugu af kugu luqad ah yaani waxa dareemaysaa yaani walwal badan ma dareemaysid inkastoo aan community kala badan hayno dad aan afkeena ku hadlin aniga dheerkayga waxa imaada ko English ku hadlo kuwa Carabi ku hadlo saddex luqadaan ku hadlaa English Somali iyo Carabi ciyaalka waxbaan barnaa yaani aad unionkana aad ay noo caawinaan early achiever si wanaagsan noo caawinay inkastoo markii hore u dhibadnaa laakiin wax badan ay u taray daycare-keena unionkana waxay naga caawinaan xagga yaani mishaaradeena wajiska waxay nala ka goosto aad ay xaqeena ugu doodaan aada ugu mahad celinaya waxaan rabaa inaan ku daro kale yaani in ay Imagine Institute oo ka tirsan unionka ay trainer siiyeen oo aan noqonay state trainers halkaas oo aga faa'iideeyna dadkeena galaasyo badan aan ku bixin af Soomaali ku baxay oo si weyn ay uga gudisan tahay markii English loogu dhigi jiray marka galaas afkaaga ku qaadid aad ay u fahmaysaa daycare badan oo nooga mahad celiyeen annagana ku faraxsanaa inaan dadkeena caawino assalaamu calaykum magacayga waxa la dhahaa Mulki Ibrahim waxaan la shaqeeyaa daycare plus the unionka waxaan ahay vice president of the unionka providers activate daycare-ka macnihiisa raba inaan ni sheego daycare-ka waxa waaye ilmahan xanaaneynaa ilmahan caawinaa okay waxaan caawinaa waalidka dadka transportation-ka haysanin gaariga haysanin waan u soo qaadnaa kuwa gaariga hastaana way noo keenaan saasaan ku caawinaa waalidka unionkana caawiyaan lacag yar bayna siin jireen before our union fight for us way noo kordhiyeen reeska waxaan ku xiriirnaa providers aan u nahay oo information keena siinaa like Facebook yaashan ku xiriirnaa information-ka meeshaasaan aan dhignaa waalid emails WhatsApp-ka meelo badan baan ku xiriirnaa oo laga helo anakana Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adam Mohammed. I work as interpreter for the union when they have events, the daycare providers, Somali daycare providers especially. If you talk about what they do, here we make a clip about them talking about their daily schedule. They say that they pick up the kids from infant to school age and they provide them transportation who don't have transportation and they keep and take care of the children, providing them with food, snacks in the morning, breakfast, snack, lunch, and all the way sometimes to dinner until the parents are out of their work. Sometimes they provide them back transportation to their houses or parents come to pick them up. So while in the care of the children, they teach them preschool, what school is needed, and yeah, it's an amazing job that they do. Unions do a lot regarding bargaining
They provide them transportation to Olympia, and they sit in the table with the daycare Department of Early Learning, and they negotiate so that they get well paid. And at the same time, there are Imagine that provide them training, so that they became now trainers, and they train new daycare providers. So it's a ring of amazing job, and it's well. And during the events, we provide translation of Somali to English, and that helps a lot and facilitate so that they understand what the WACS Washington laws about daycare and everything. So all I can say is keep up the good work. hooyooyinka daycare-ka haysto oo Soomaalida ah, gabdhaha daycare-ka haysto oo Soomaalida ah, door weyn bay kaga jiraan mujtamaca Soomaalida. Ha noqoto ubadada yararka ay daryeelayaan oo loo keensado intii ayna gaarin preschoolka ama ku iskuulka gaaray ama ku iskuulka dhigto oo markay iskuulka soo baxaan inta ka soo ruuxaan waalidiinta lagu simo. shaqadaas ay qabtaan shaqo aad u weyn oo mujtamaca caawinayso oo waalidiinta caawinayso oo hooyada shaqaysana caawinayso. maxaa yeelay hooyada shaqayso waxay ku kalsoonaanaysaa markii ay daycare-ka geysato caruurteeda maamo kale oo Soomaali ah oo luqadii iyo afkii ay taqaano kalsooni weyn bayna ka helaysaa. maamooyinka daycare-ka haysto ama gabdhaha daycare-ka haysto mujtamaca doorka weyn ka qaata waxa kamid ah in ay bixiyaan wax Allah wixii mujtamaca Soomaalida ku saabsan oo sadaqada ah, ama ha ahaato masaajidka, ama ha ahaato dhibaatadii abaaraha ku dhacay Soomaaliya ha ahaato, ama ha ahaato sidii dhibka weynaa bardhood oo kale Soomaaliya ka dhaco kale oo lacagta loo ururiyay, doorka ugu weyn ayay ka qaataan. marka waxa weeye waa loo baahan yahay shaqo weyn way qabtaan. shaqadaas ay qabtaanna anaga waan ku soo dhaweynaynaa. anaga ka mujtamac ahaan dadka oo mujtamaca mataqaana elderska ama dadka odayaasha ah ama dadka culimada ah ama dadka macallimiinta ah waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa arrintaas, waana daryeelnaa caruurtana laftiga dhanka kale ka haynaa oo dhankay ka hayaan kala ka hayno caruurtooda waxbaan barnaa way noo keensadaan. marka waxaan adabeenka leeyahay aan soo dhaweynaynaa dadka ay ah. waxa kale oo jiro oo mataqaana hooyinkaas hawsha ay hayaan ayada ah oo hawl aad u muuqato aan qarsooneyn, anagana aan soo jiidano soo dhaweynay unionka SEIU 925 doorka ay ka qaataan hooyooyinka daycare-ka haysta ama xagga tababarka ama xagga maamulka ay ka hayaan u hayaanna waan soo dhaweynaynaa. waa mahadsantiin. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Cismaan Macalin Ibrahim, waxaan u shaqeeyaa qolooyinka qaxootiga soo dejiyo refugee resettlement-iga. waxaan ka hadlayaa maanta insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo doorka community-ga amaba daycare-da Soomaalida ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda. sidaan ognahayba door fiican ay ka ciyaaraan community-ga Soomaalida daycare-ka Soomaalida, sababtoo ah waxaa kamid ah iyagoo markaan fiirin dhinaca dhaqanka ilmaha marka ay joogaan meel daycare Soomaaliya, faa'iidooyinka badan ay ku leeyihiin waxaa kamid ah iyagoo marka hore ka faa'iideysta luqadoodii dhaqankooda loogu sheego ayna ku fahmayaan dadka ay la joogaan markaas oo ah dad Soomaali ah ama daycare Soomaali ah. sidaan ognahayba caruur badan ayaa wadankan ku dhalatay oo aanan fahmaynin luqadoodii ay original ay u leeyihiin. taas waa faa'iido. dhaqankii maamada laftirkeeda waxay ku kalsoon tahay daycare keensanaysa ciyaalkeeda dad luqadoodii ay fahmi karto oo daycare markay u hayaan kalsooni badan bay ay ka helaysaa ama ay ku leedahay community-ga dhexdeeda. for example dadka anaga markaanu keenno
ay wadanka ku cusub yihiin ay qaxooti ay yihiin caruurteeda halkeen geynayaa ay ku leeyihiin waxay rabaan inay iskuul aadaan caruurtii qof ay ku kalsoon yihiin ay ku fahmi karaan ayay rabaan inay u geystaan meel kale haddii la geeyo fahamkoodii dhibaato badan inay ugu imaanayso ay ictiqaadsan yihiin amaba ay fahansan yihiin amaba aysan ku kalsoonayn waxay si aada ugu kalsoon yihiin in ay helaan qof ay fahmi karaan qofkii waddanku ku cusub yahay luqadii ma fahmayo sideen caruurteedii u geynayaa qof kale oonan garanayn laakiin marka qof uu af yaqaano ama ku dhaqan ah ama uu fahmi karo loogu geeyo aan lagu soo qoro aad buu ugu kalsoonaanayaa markii iskuulkiisa uu tago qofkii adhaltiga ah maamadii ama aabbihii ay la geeyo lagu soo qoro iskuul lagu soo qoro amaba shaqo lagu soo qoro wuxuu u baahan yahay qof haddii uu soo daha xataa waxyar uu soo daha qof uu ku kalsoon yahay ciyaalkii 5 minute baan ka soo dahayaa xaaladooda waa sidee wuu ku kalsoon yahay qofkaas markaas u hayo marka kalsooni badan ay dadku u hayaan communitiga Soomaalida in qof kale oo ay fahmayaan ciyaalkooda aynu ku aamini karaan ay u hayo ay fahmi karaan waa door aad u muhiima ay dadkana la'aantoodii aysan u suurtoobin haddii daycare Soomaali uusan jiri lahayn waxaan aad ugu faraxsanahay in dadkii cusbaa ee wadanka aan ku soo dhaweynay ee annagu aan dejinay dawladda ay dejisay qaxootiga ahaa in dib ay u noqdeen dadkii markii ESL classes la geeyay oo luqadoodii ay waxyar ay horumariyeen in training badan la siiyay dib ay u noqdeen iyaga laftirkooda daycare provider ah oo iyagina dadkii iyaga ka dambeeyay ay caruurtii loo geeyo iyagana mar kale sidii markii processkii iyaga ay soo mareen wadanka markay ku cusbaayeen ay u heleen daycare Soomaaliya iyaga laftirkoodii ayaa waxay aadeen iskuul intay aadeen luqadii ay barteen training la siiyay then iyagii ay noqdeen daycare oo iyagana dadkii iyaga ka dambeeyay ay ciyaalkii u qabteen amaba ay u noqdeen daycare provider dadkii cusbaa iyagana taas ayaan aad ugu faraxsanahay oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay sababtoo ah dadkii shaqo ay heleen dhinac ay noqdeen in daycare provider ay noqdeen ay communitygana ay wax u tareen dhinac walba ay wax ugu tareen sababtoo ah waxaan ognahay in daycarada Soomaaliya ay Soomaalida halkan ay ku leeyihiin in communityga door weyn ay kaga jiraan dhinaca caawinaada haday noqoto bulshada xageeda hadii dhibaato ay yara dhacdo community supportigeeda dhinac walba ay door weyn ay ka ciyaaraan aad baan ugu faraxsanahay arintaasna qolooyinka unionka SIU 925 ay si fiican ula shaqeeyaan daycarada Soomaalida ayna ka caawiyaan ayaan aad u codsanaynaa. السلام عليكم ورحمة الله.